السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو هذا channel كبرنامج كيسي عافيمات كأها وحان إدين سو جيدين سأنيقو هارون maanta waxaan ka hadli doonaa toonta iyo dhaga xanuunka sida ay ugu fiican tahay sida uu qofka uu iskaga daaweyn lahay dhaga xanuunkii. horta toonta maadooyin badan ku jirto, maadooyinkaas oo kale waxaa kamid ah antibacterial antiviral properties wax la ayaa kamid ah oo awood u leh inay dilaan bakteeriyada ama germska dhagaha qofka xanuunka u keeno. qofkii hadane gaalik waxay kaloo sii daawey kartaa infectionka dhagaha ku dhaco iyo dhaga xanuunka ay daawey kartaa iyo dadka xoogaha si fiican wax u maqli karin, sidoo oo qofkii u sameeysan karaa sida uu iskugu caawiyo daawadan dabiiciga ah. wuxuu sameeysan karaa garlic oil sida naqaano meel walba laga helaa, laakiin waxa fiican qofkii inuu sameeysto, taas ayaana 100% guarantee u leh. wuxuu sameey karaa qofkii 4 xabo toon ah ay wuxuu ku darsanayaa 8 qaando oo olive oil ayuu digsi inuu ku shubo dabka saarnaaya medium heat ay u geenaya. markii uu arko toonta inay jilacday uu ka miiraya den dhala ayuu ku shubanaya, mise meesha uu qofku uu rabo ayuu ku shubanaya, den qofku uu isticmaalaya. garlic oil kan waxay guarantee u tahay mise ay awood u leedahay inay disho bakteeriyadii mise germskii qofkii dhagii ka galay, qofkiina dhaga xanuunkii sidaas ay uga tagaya. hadduu qofkii dhaga xanuunkii oo sii wato obviously qofkii waxaa la rabaa inuu la kaashado dhakhtarkiisa la kaashado, because dhaga xanuunka horta serious waaye, maskaxda ayay ku xiran tahay, maskaxda damage ay u geysan kartaa. marka qofkii waxaa fiican markii ay xanuunkii uu daily uu sii noqdo mase continuous oo sii noqdo qofkii inuu dhakhtarkiisa la kaashado soo daawo caafimaad la qofkii oo u helo. since dhahay dhaga xanuunka maskaxda ayuu ku xiran tahay, maskaxda damage ay gaarsi kartaa, hadana waxay keeni kartaa daily madax xanuun ay keeni kartaa. waxaa jira dad madaxa uu saaid u xanuunaya, maxaa keeni kara qofkii dhaga xanuun haduu qabay daily madax xanuun ayuu qabaya, continuous madax xanuun ayaa ku dhacaya. hadana garlic waxaa qofka kale oo si isticmaali karaa whole clove of garlic, markaas dhahay calal ayuu inuu qabsado oo toonti kala jaro ayuu marada inuu ku duubo oo dhagtisaan iskaga saaraya. please sidaan ilmaha yarka yaa loo isticmaalin, ma fiicna ilmaha in loo isticmaalo because adiga sa isku ilaalinaysa ilmaha iskuma ilaali karaan. hadana qofkii wuxuu sameey karaa garlic oilka uu sameystay suuf ayuu inuu ku shubo ayuu qofkii dhagta saar karaa. dhagta markuu saarto maxay ka caawin kartaa garlic oil, maxay faa'iido u leedahay qofkii inay ka caawiso. sida idin soo sheegay garlic oil waxay leedahay maadooyin la antibacterial iyo antiviral properties, kuwaasoo ina awood u leh inay dilaan bakteeriyada iyo germska dhagaha qofka galo oo painkiina qofkii oo xanuunkii ka jooji karo. hadana waxyaalaha kale ee kasii caawinayso waxaa waaye anti-inflammatory waaye property ayaa ku jiraan, kuwaasoo saaid ugu shaqeyn karaan xanuunkii inay qofka ka dejiyaan. waxaan